xulka qaranka Soomaaliya ayaa sameeyay tababarkii ugu dambeeyay isugu diyaarinayaan ka qaybgalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika. Xulkan waa kuwa 15 jirada kuwaas oo laga soo kala aruuriyay tartankii iskuulaadka iyadoo Soomaaliya ay u diyaarisay inay ka qayb gasho tartankan oo markii ugu horeeyay la qabanayo iyadoo wadamada bariga iyo bartamaha Afrika loo qabanayo tartan 15 jira markoodii ugu horeysay. Tartankan ay Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay guulo lixaad leh ka soo gaarto. 11 dal ayaa loo qabanayaa tartankan 15 jirada kaas oo looga gol leeyahay in ay wadamadan soo saartaan ciyaartooy matasha koobka under 17 ee sanada soo aadan bilowgeeda la qaban doono. Soomaaliya waxa ay ku group gashay wadanka tartankan matagelinaya sanadkan ee Eritrea oo ay groupka kula jiraan Kenya iyo Burundi. Halka groupka B ay ku jiraan wadamada Uganda, Rwanda, Ethiopia iyo South Sudan. Tanzania, Sudan iyo Djibouti ayaa groupka C ku jiro. Wadamada badankood ciyaarihii 17ka ee Soomaaliya la soo ciyaartay oo ay guulo ka gaartay sida wadanka kulanka furitaanka ay la ciyaari doonaan Soomaaliya ee Kenya oo ay ciyaari doonaan kulanka ugu horeeya Jimcaha soo aadan 16 Agoosto. Halka kulanka labaad ee Soomaaliya ay la ciyaari doonto wadanka tartanka martigelinaya ee Eritrea Isniinta soo aadan ay ciyaari doonaan 19 bishan Agoost. Kulanka ugu dambeeya ee groupka oo ay Soomaaliya la ciyaari doonto dalka Burundi ayaa la ciyaari doonaa Jimcaha soo aadan kiisa kale ku beegan 23 bishan Agoost aan ku guda jirno. Tartankan guud ahaan waxa la soo gabagabeyn doonaa 1 bisha September oo la ciyaari doona ciyaarta ugu dambeysa ee finalka iyo kulanka kaalinta saddexaad. Soomaaliya mar kale ay taariikh sameyn kartaa ciyaartooyda 15 jirada kuwaas oo loo sameeyay diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ama tababar muddo dheer loo sameeyay. Xidigahan ayaa badankooda xiriirka ku xareeyay garoonka jaamacadaha halkaas oo lagu diyaarinayay si ay guulo waaweyn u keenaan. Cabdiraxmaan Axmed Taleeg oo kamid ah macallimiinta hogaamin doona xulka qaranka Soomaaliya kaas oo muddo fog tababar soo siinaya ciyaartooyda tan iyo markii la soo xareeyay ayaa sharaxaya Soomaaliya waxa ay ugu guul leedahay tartankan iyo natiijada ay ka rajeynayaan in ay gaaraan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil ba'd salam. Shukran Soomaaliya baasporta wa salaam maanti saad la socotaan waxaan u diyaar garooweynaa ka qaybgalka tartanka Sakafa Under 15 oo ah markii ugu horeysay oo xiriirka kubadda cagta Sakafa uu qabto waa tartankii ugu horeeyay oo ay Eritrea hoos garanayso waxaana jecelnahay insha Allah bisha 16 la ciyaarno wadanka Kenya annagu group A ah group A gaas oo Soomaaliya Kenya Burundi Eritrea marka ciyaartu ugu horeysay insha Allah waxaan la ciyaari doonaa wadanka Kenya wuxuuna bilaaban doonaa 16 bisha ciyaartooydan Ramadaanka markii laga soo laabtay ka bacdi iskuulaadka inta socdeen oo Ramadaanka xataa waan bilawnay ciyaartooy kala duwan oo markii hore la xulo 96 qaybaan ka xulnay iyo tartankii labaad oo iskuulaadka 14 iskuul oo xiriirka Soomaaliya ka diiwaan gashay oo tartamo ugu jiraan ciyaartooy aan ka xulnay ayagana 60 ah iyo 96 qaybihi kala duwan ciyaartooy laga soo xiray oo 90 qayb laga soo xulo under 17 kan u tiyaari karnay 90 iyo 6 ciyaartooy waan ugu talagalay under 17 sanadkaas inay qayb galaan oo qaban doono by the time Sakafo tartankii under 17 dib u dhigtay 2021 ka dhigan 2022 soo marka waxa la isla gartay in kubadda cagta Afrika laga bilaabo from bottom hoos laga soo bilaabo sidaas daraadeed waxa la marka la isla gartay oo Kenya shir loo qabtay in Sakafo ay qabato tartanka under 15 ka oo Eritrea hoos garanayso Eritrea ay tartankaas loo qabanayo soo marka meeshii under 17 waxa maadaama uu gaab soo galay waxa haddana u jeesan inaan 15 jiradii inaan bilowno tartankooda iskuulaadka ka xulno ilaa 60 ciyaartooy iskuulaadka 14 iskuul tartamada socda laga soo kala xulay waqti dheer loo qabtay ayagii iyo 96 qayb kamid oo kuwa ugu yaraa haddana ay laga soo qaaday muddo dheer intaas ka bacdi si different steps soo mareen haddana si arkaysa 27 ka soo 27 waxa limit uu noqday 22 ka qayb gashay tartanka Sakafa oo galaatay 6 kale still waxay ka mid yihiin qaranka kamid laakiin hadda waxa safarka ay doonayaan insha Allah waa 22 ciyaartooy kamid ah ciyaartooydii 96 iyo 60 ka soo qaaday qayb kamid ah wallahi mar walba waxaan fiirinaynaa tabar korto waxa weeyaan xilli hore breakerna waa ku soo iskuulaadka tabar si fiican qaateen hadda iskuulaadka marka la fano ku galabtay dhigtana galabtay aadeen because anaga training labada xilli baan bixinayna kuwa subaxda janiska subaxda tabarka qaadana kuwa galabtay janiska qaadana soo marka tartankii iskuulka furitaankiisa iyo tartankii ay taagishada isku soo beegno hada soo tabisha hadda bisha bilowday iskuulaadka la furay wixii koornaan subaxii kala wata barnaamijka ciyaartooyda qaranka midalan anaga qasamo kulli mana qasbi karno waxa weeyaan waa wadan jacayl iyo ciyaar sport jacaylkii iyo family-giisu oo uu yahay uu heegan u yahay asaga naftiisu because markii la xareenay waa loo yeeray family-gu inay ka qayb qaataan nolosha ku nool yihiin meesha lagu xareenayo cuntada ay cunayaan sida xiriirku u diyaar garow meesha la seexinayo wax ay cunayaan meesha ay u socdaan iyo hadaf kale leeyahay waalidkuna way ku qanceen oo soo dhaweeyeen iyaga iyo baaba aragtay kulli iyo just dhiirigelin ciyaartooyda xataa ay
jeclaadeen inay qaranka sii mid noqdaan because waa qayb kale ayadana mental training kamid ah waxbarashada kamid ah sportiga kaliya macnaha xataa maskaxda uu dhisaa physicalka uu dhisaa waa qayb kamid ah marka waxa weeye waalidka hadduu san raalli ka inuu qori karo waxa weeye waxay safaan waalidkuusan ku qanacsanin anagu inaan ciyaartooyda caqabro dhibaatayna marka la socoto adduunyada xataa markaad fiiriso dad waxaad arkaysaa nin 100 kiilo 80 kiilo in 40 kiilo sida ciyaarey waxa laga ciyaaraa waa qalbiga iyo maskaxda iyo kalsoonida qofku isku qabo oo skillskiisa xirfadiisa intuu awood u leeyahay ma ahan musaarac wax la ciyaaro waa kubad la ciyaaro kiif aan ku dhiibtaan dhaqaaq baasan ninka ka xoog badan hadaa kubad inta control iska dhiibto xagee isku arkaysaa marka maskaxda laga ciyaara iyo aqliga iyo farsamada iyo xeeladii adkaysiga la isku daray waxay sahlaysaa markaas iyo farsamada xeelada macallimiinta tacticada in la isticmaalo waxay sahli kartaa markaas in nin walba physicalka uu leeyahay waad ogeyd hadda asaas sheegaysa 2018 bandhiga ay sameeyeen physical ahaantooda difference u leeyahay practical so waxa weeyaan commitment ka go'naanshaha qofka iyo dadaalka uu sameeyo iyo sidoo dedicate iyo u dadaalay ku xiran tahay walba in natiijada uu higsanayo qofku higsiga uu leeyahay so marka waa qayb kamid ah marka ay sameynayaan markaas ciyaartooyda waxaan leeyahay insha Allah sida hadda disciplinekiina iyo akhlaaqdiina iyo horumarkiina iyo farsamadiina wanaagsan tahay halkaas ka sii wada dadaalkii shaqada aan isla wadnana waxaan rajeynayaa insha Allah inaan khibra dhalo doono adikana wax walbo anagu aan diin macna igmanana adikana noo matashaan oo qarankiina matashaan oo ciyaartooydii kale iyo macallimiintii iyo xiriirkii iyo Soomaalida mas'uuliyadda dadweynaha inaad ka soo dhaalay doontaan waxaan la marna xaqoosanina insha Allah mar walba ilaa daqiiqada ugu dambaysa waligiina leeyihiin dadaalkiina kartidiina muujiya waana gaarina insha Allah guul wax koola shacabka Soomaaliyeed waxaan la taageeraduna kama maarano xiriirka Soomaaliyeed waa ku maadsan taageerada weynta oo heer dharaar iyo habeen la dul taagan iyo qalabaynta iyo wax walba oo haddii cuntadii ahaan lahayd wax walba ahaan lahayd loogu talagalay ayaga moralkooda ku support garoobeen aasay macallimiinahan iyo ciyaartooyaan inta way noo qabteen waxaan rajeynaynaa insha Allah anagoo wada faraxsanayna wada baxno anagoo faraxsanayna sunnimada waxaan leeyahay Soomaalidu wada faraxsanayso insha Allah ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya oo ay matalaya sanadan ayaa qaarkood la wadaaga dareenkooda ku aadan in markii ugu horeeyay ay matalaan xulka magacaygu waa Saxmaan Qaadir waxa ka socda iskoolka Daawur Darbiya waxa jeeda lambarka 4 waa ku faraxsanahay qaranka waa markii ugu horeysay la soo wacay waxa soo rajeynaa guul inaan keen bismillaah magacaygu waa Anad Cumar Isaaq naanisteeduna waa Anad Nooya waxaan faraxsanahay inaan ka soo qayb galo qaranka inaan ka mid noqdo waxaan ka imaa iskuulka 2 November waxaan ku faraxsanahay maanta inaan matalo xulka qaranka Soomaaliya oo koob u aadi doono dalka Asmara Eritrea marka waxaan ku faraxsanahay inaan koob Soomaali u keeno magacaygu waa Usaama Xasan Nuur waxaa ka imaa iskuulka Daawur Darbiya waxaan dhiilay booska noobaha waxaan matalayaa qaranka Soomaaliya waana ku faraxsanahay inaan qaranka matalo waana markayga ugu horeysay aan matalayaa qaranka waxaan rajeynayaa inaan Soomaaliya guul u keeno doono insha Allah taala bismillaah magacaygu waa Maxamuud Amiin Jilani waxa ka imaaday iskuulka Hooyga Xamar waxa dhilaa booska saddexaad waa markii ugu horeeyay aan matalay xulka qaranka Soomaaliya waana ku faraxsanahay matalitaanta xulka waana maasantahay magacaygu waa Axmed Nuur Shariif waxa u dhilaa iskuulka 2 November waxa ka dhilaa qad dhexe waxaan ku faraxsanahay inaan matalo xulka Soomaaliya waxaan rajeynayaa inaan guul soo gaarno magacaygu waa Cabdullaahi Cali Ibraahim waxaan ka mid ah ciyaartooyda sanadkan ciyaaraysa iskoolaadka waxaan u ciyaaraa iskuulka Daawur Darbiya xag iyo booska duwaha Englishka loo yaqaan right back waxaan sanadkan isku dayayaa inaan wadankayga guul u soo qaado waa markii ugu horeysay aan wadankayga matalay ciyaaryahan qaran aan matalay insha Allah waxaan rajeynayaa kuwa insha Allah ilaa calafka ugu dhigo guusha inaan noqdo insha Allah bismillaah magacaygu waa Cabdicasiis Usmaan Cumar kana tirsan kooxda qaranka Soomaaliyeed waa markayga labaad aan matalayo qaranka Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay aad iyo aad waxaan rajeynayaa guul taaban karo dalkan ku farxaan inaan keen insha Allah ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa rajadooda ugu weyn waxa ay tahay inay mar kale magac sameeyaan oo ay guul gaaraan xidigahan oo badankooda u badnaayeen kuwa dhalinyaro ah oo markooda ugu horeeyay matalaya wadankooda ayaa rajeynaya in ay guul la soo gaaraan tartankan oo ay 11 dal matalayaan markii ugu horeysay